السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. magacayga waa Baasha Cabdiqaadir Muuse channelka daawanaysiina waa Baasha Fikis. Channelka haddaa ku cusub tahay insha Allah subscribe saar, asxaabtaadana wadaag haddaa horey joogtana like and share saar si asxaabtii dhalinyarada waxa weeye ay nolol faa'iidaystaan. Insha Allah waxaa sida caadada noo ahayd habeen kasta waxa weeye isniin soo galayso waxaan falanqeyn jirnay oo aan isla wadaagi jirnay fursadaha waxa weeye ka bannaan suuq. insha Allah waxa weeye أسبوعاً waxaweye waxayna wadaagi doonaa lacagaha la sugayo lacagaha la rajeynayo inay dhaqaaqaan ma garanaysaa lacagaha ugu fiican oo waxaweye fursadaha ugu fiican bixinaya insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo waxaan ku bilaabaynaa insha Allah sida caadada noo ahaydba marka ugu horeysa marka wax falanqeynayna waxaan ku bilownaa lacagta la yiraahdo DXY jihadeeda markaan helno sidoo kale waxa weeye aan helno meeshii aadi ka dho kadib waxaan raadinaa lacagaha kale iyo waxa weeye fursadda ay bixinayaan insha Allah DXY markii jiha ka heshid lacagaha kale oo dhan waxa weeye waxa ku fududaanaysa in ma garanaysaa si fudud oo easy ah waxa weeye aad uga heshid entry ama laftigooda waxa weeye jiha fiican aad u marka insha Allah asbuucan waxaan ka rajeynaynaa lacagta DXY fursad waxa weeye buy ah qurux badan insha Allah fursad waxa weeye long term buy ama ilaa halkaas oo kale waxay ku noqon kartaa waxa weeye short term fursad short term in halka la tago soo laabto ana suuq ranging kara waa macquul marka lacagtan DXY insha Allah waxaan ka sugaynaa maadaama level adag ay joogto xogaa levelkii in yar isku dayda inay jabiso kadibna waxa weeye retracement soo samaysay and then waxa weeye fast retracement ay samaysay kadibna waxa weeye ay saab ay ku aadayso lacagta la yiraahdo DXY waxaan moodaa inay fursad qurux badan samaynayso asbuucan waxaana ku jira waxa weeye chance fursad qurux badan oo buy ah insha Allah lacagta DXY waxaan ka faa'iideysan karnaa ilaa iyo daily time frame markaad tigtid oo kale waxaa muuqanaysaa haddii waxaan dhan aad tirtiro weligaa lacag markaa falanqeynaysa waxaa laga soo bilaabaa weekly time frame markaad fiirisid waxa weeye lacagta marxaladda iyo waxa ay ku jidho waxa weeye kuu fududaanaysa in aad ka heshid ma garanaysaa fursad aad ka heshid ama chance aad ka heshid baa kuu fududaanaysa lacagtan sidii halka ay ku timid waxay double top bay ahayd double bottom bay ahayd baan ka wadaa double bottomkii waxay ku timid move dheer oo waxa weeye sell ah oo ku sameynayay imbalance correction bay ku timid meeshaan sidoo kalena waxay jebisay trend line daily time frame double bottomka yarka waxay ku timid 1 iyo 2 iyo 3 lacagta DXY maadaama ay ku timid meesha 1 iyo 2 iyo 3 sidoo kalena trend line wax badan ilaa wax ku dhow sanad 2020 waa la soo galay wax ku dhow sanad maadaama ay lacagta la yiraahdo DXY down ku soo socotay waxaan ka sugaynaa insha Allah in ay waxa weeye markaana siiso chance long term buy aan kula socon karno ilaa waxa weeye sanadka inta ka dhiman fursad buy ah fursadda aan ka sugaynaa ilaa waxa weeye sanadka inta ka dhiman fursadaha ugu badan oo ka raadin doonana waxay noqonaysaa DXY fursad buy ah bay ka noqonaysaa insha Allah haddii la yiraahdo waa laga yaabaa short term sellers inaan ka raadin oo kale marka meelaha la tago kale in waxa weeye aan soo sell garayno kadib haddana fursada buy waxa weeye meelaha ka raadsano haddana short term sellka meelaha ku jira waxa weeye ayaga laftooda waa kuwa laga faa'iideysan karo laakiin DXY waxay u badan tahay inay u jahaystay waxa weeye fursad buy ah marka mar haddii trend line u jabay sidoo kalena waxa lacagta lagu yaqaanaa marka trend line ay jabiso inay sidoo kale jabiso zone-ka ay jabiso lacagta DXY waa ujeedaan zone-kii way jabisay trend line-kii way jabisay zone-kii kadib waxa weeye waxay kusoo samaysay retest way kusoo samaysay waana weekly time frame hadda maxaan sugaynaa daily time frame-ka waxaan sugaynaa insha Allah in meesha waxa weeye DXY ay ka kala wareegto oo fursad qurux badan oo buy insha Allah meesha inaga siiso waxa kale yadoo qaabka marka meesha aan uga buy gareynayno waa maxay meesha marka koobaad daily time frame-ka waa inaan ka raadinaa candle confirmations waa inaan ka raadinaa meesha hadda sida ujeedaanba weli haddii 4 hour-ka aad tidoo kale waa laga yaabaa inaan candle confirmation aan ka heshin meeshaas maadaama ay tahay meel zone adag waa ujeedaan zone adag bay ahayd waa yar baa la jebiyey la isku dayay la jebiyey waa laga soo laabtay waxaan moodaa reversal pattern inay sameynayso insha Allah waxa weeye lacagtan waxaan ka sugaynaa insha Allah fursad qurux badan oo buy ah qofkii waxa weeye sugi kara reducerka uu ka qaadan karaa oo DXY reducerka markii halka ay jebiso oo kale waxay noqonaysaa in ay jebisay in ay trend line-ki jebisay sidoo kalena zone-ki ay jebisay testiga qofku ka faa'iideysan karaa
haddii kale hadduu sir testigaas weyn meesha hadda DXY ay marayso waa meel laga qaadan karo waxa weeye risk entry insha Allah waxa weeye fursad qurux badan oo buy amaana ku jirta insha Allah hadii la yiraahdo marka DXY waa isla fahanay DXY fursad buy ay sameynaysaa waxaan fiirin doonaa mataf waxa weeye lacagaha kale waxay sameynayaan lacagtan waa lacagta euro lacagtan buy baa u saadaalna isbuucii hore haddana waxa weeye sidoo kale buy-gii bay hadda ku socotaa marka lacagta waxay sameynaysaa haddaan isla soo dulmarno weekly time frame mar walba inaad lacagta ka bilowdo waa muhiim weekly time frame waxaa ujeedaa lacagtan in waxa weeye ay kusoo socotay horta lacagta inay samaysay impulse inay samaysay waxaan correction ay yihiin another impulse waxa weeye lacagta ay sameynayso balse correctionka wuu dheeraaday oo waxay noqotay in ay waxa weeye meelahan aysan ka laabanin ay demandigaas ay markii hore ka kacday ay mar labaad kusoo laabato ay soo raadsato marka marka structure wizards anagoo isticmaalayna mar walba waxa weeye area targetka anagoo trailing-kii wax walba isticmaalayna waxaan fiirinaa suuq muxuu hadda sameynayaa suuq halkan wuxuu ka sameeyey 1 iyo 2 halkan wuxuu ka sameeyey 1 iyo 2 iyo 3 mar kale inuu waxa weeye meesha ku laabto insha Allah suuqina ama sidoo kale waxa weeye la jabiyo maadaama baatanka halkan waxa weeye lacagtu ay soo jabisay ay ku jiray uu ahaa baatan waxa weeye weekly time frame baatankii la jabiyo laga dhex baxay hadda waxa weeye lacagtu correction ku jiro anada impulse ilaa targetkaas oo kale ama ilaa weekgaas in la soo dhameystirayo waxa weeye lacagtu ay soo buuxinaysaa ay u baahan tahay insha Allah marka maadaama meeshan ay ka samaysay 1 iyo 2 ay samaysay impulse ay samaysay waxaan fiirin doonaa insha Allah daily time frame waxay ka samaynayso daily time frame-ka waxay ka samaynaysaa meeshii waxay ku timid qaab waxa weeye corrective ay ku timid anagu dhimayna kaliya 1 iyo 2 iyo 3 laakiin waa corrective sidoo kalena waxa weeye waa reversal marka hadda waxa ay samaynaysaa waa maxay trailing-ka way jibisay meesha correction-ka lagu keenay daily time frame-ka hadda hal mar ku laabto haddaa cabirto waxa weeye meesha zone-kii waxa weeye testiga ay ku samaysay zone-ka laga soo weeyay inay test ku samayso zone-kii way jibisay sidoo kalena trailing-ka way jibisay marka waa inay zone-ka iyo trailing-ka bar test ku samaysaa 4 hour time frame baan tegaya insha Allah 4 hour time frame-ka lacagta euro maxay ka samaynaysaa 4 hour time frame-ka trailing-kaaga mar walba saxo si qurux badan u saxo waxaan sugayaa insha Allah one more time in waxa weeye lacagtan insha Allah la soo celiyo area lagu soo celiyo maxaa yeelay lacag iskama boodayso ilaa ay correction dhamaystirato correction-kan wuxuu u muuqdaa correction aan dhamaystirnayn laba taabasho oo kale uu sameeyey waa inuu laba taabasho oo hoose ilaa saddex taabasho oo hoose sameeyaa in mar labaad lacagta ay soo laabato kadibna waxa weeye saab ay ku aado ayay u badan tahay marka lacagta waxa weeye eurona saasay u badan tahay insha Allah dhowr lacagood oo matafka waa isla fiirin doonaa lacagta GBP waxay hadda sameynaysaa lacagta GBP asugu dhawata seelka oo soo dirnay waa ogeydeen si fiican way soo aaday ikastoo aan ka sugeynay meelahaas oo kale inay test yar naga siiso laakiin ma aysan siin laakiin lacaga badan oo waxa weeye GBP ayaa ka faa'iideysanay insha Allah waana soo daawan ka dhafalqaynta hore lacagaha GBP aan ka faa'iideysanay GBP AUD GBP NCD GBP USD badankooda ka faa'iideysanay marka ma sha Allah GBP fursad labaad hadda ka sugeynay waxa weeye impulse awood laba soo samaysay 123 way soo dhameystiratay trailing-kan xataa waxa aragtaa inay waxa weeye jabisay marka insha Allah in trailing-ka mar kale ay ku laabato oo trailing-ka meesha ay ka jabisay waxa weeye zone baa ku jira marka in waxa weeye zone-ka ay soo dhameystirto oo ma garanaysaa si qurux badan loogu laabto zone-kaas ilaa adiga waxa dhici karta dhowr qaabood in lagu laabto oo kale in qaab aggressive lagu tago oo kale marka haddii qaab aggressive lagu tago waa dib miro weey waxa dhici karta meesha in correction lagu galo kadib zone-ka la jabiyo marka adiga waxa loo baahan yahay in meeshaas markii lagu tago qaab correction lagu tago in waxa weeye risk entry oo kala soo qaad haddii kala laftigeeda haddii qaab aggressive lagu tago mar walba anagu waxa eegnaa low time frame-ka haddaan ka aragnaa reversal waa soo qaadnayna haddii xataa aggressive lagu tago macnaha lacagta ay sameynayso oo kale inay soo laaban ku kale ay sameynayso marka lacagta insha Allah waa dhowreynaa haddii testiga aan ka helay insha Allah testi qurux badan baa ku jira fursad qurux badan waxa weeye GBP-da seel ayaa ku jira insha Allah waxaan ku xijinayaa lacagta la yiraahdo JPY waa lacagta si leeyahay fursadaha ugu quruxda badan bay leedahay waana lacag insha Allah waxa weeye long term la socon karo lacagta JPP haddaan isla fiirino oo kale daily time frame-ka lacagta waxay samaysay double bottom bay samaysay kadibna waxa weeye reversal bay ka samaysay marka reversalki maadaama ay kasoo samaysay sidoo kale meelahan supply and demand is horay seelashu u samaysteen baa la sell risk ay samaysteen ayaa la marka
lacagtan waxaan ka sugayaa insha allah halkan waxay ka samaysay impulsive ka samaysay waxa weeye waa correctionku wuxuu sameeyey laba taabasho oo kore ayuu sameeyey laba taabasho uu sameeyey halkaana waxa weeye inuu ka sameeyo mar labaad inuu waxa weeye kusoo laabto lacagta meesha ay kusoo laabato oo taabasho kale oo labaad ay samayso laba taabasho laftigeedu way samaysay hadii si fiican waxa weeye loo fiiriyo iyada laftigeedu laba taabasho ay samaysay laakiin waxaa muuqata in meeshaan insha allah mar kale lagu soo laabanayo kadibna waxa weeye saab bay lagu aadaya marka GBP iyada laftigeeda waxaan ka sugaynaa fursad bay ah targetkan wuxuu noqonayaa ilaa meelahaas oo kale insha allah waxaan ku xijinayaa lacagta Canadianka ah lacagta Canadianka inta hadda aynu sheegay JPY waxa weeye fursad badan bay bixinaysaa lacagta Canadianku meeshaan ka sugaynay already way almost way joogtaa wayna hit karaysay balse aggressive baa meesha lagu keenay markaan kale marka loo baahan yahay inaad taxadir ka samaysid tastiga waa haynaa laakiin waxa weeye qaab aggressive ayaa lagu keenay marka waxaan fiirin doonaa 1 hour oo kale waxay samaynaysaa lacagtan horta haddii weekly time frame ka aad tagno kale maxaa weekly time frame ka dhacaya markasta inaad ka soo bulowdid waxa weeye lacagtaada inaad ka soo bulowdid higher time frame waa muhiim halka waa meel ay lacagtaas u gaari karto laakiin lacagta waxaan sugaynaa meelahan kale in lagu soo laabto kadib inta waxa weeye buying aad lacag iskama dhaqaaqdo ilaa ay samayso impulsive correction waa dabeecadda suuqa marka waxaan sugaynaa lacagta inay halkan kusoo laabato kadibna waxa weeye ay soo dhamaysto move-gaas insha allah balse waxaan fiirin doonaa waxa weeye low time frame-ka lacagta maxay samaynaysaa low time frame-ka waxay samaynaysaa lacagtan halkan waxay ka samaynaysaa 1 iyo 2 1 iyo 2 ay samaynayso halkan waxay ka samaynaysaa 1 iyo 2 kale waxaan fiirin doonaa 4 hour 4 hour-ka triga macquul baa in la soo dhamaystiro mise waxa weeye mise macquul baa waa in isla fiirinaa insha allah marka lacagtan waxay u muuqataa in ay soo dhamaystiri karto waxa weeye trigaas maxaa yeelay halka waxa weeye waa meel dhabartod ah weeye halkaana waxa ku jira meeshaan waxa ku jira zone adag baa ku jira marka zone-kan laftigeeda xataa waxa muuqda pattern reversal ah muuqda head and shoulder kusoo laaban karo balse taa mid lamida waa macquul meesha inay correction ku gasho maadaama ayna sheegaya hadda haddii zone lagu keeno qaab impulsive in lagu geli karo correction kadibna waxa weeye meesha lasoo dhamaystiri karo intaana waxa weeye laga soo aaday sell oo waxa weeye demandigan aan mar labaad lagu soo laaban intaana waxa weeye bay caadiya marka laga aadi marka insha allah waxaan dhihi lahaa mar walba waxa weeye isha ku haya lacagtan waxay samayso 1 hour-kan fiirin karnaa haddii meeshaas wax reversal ay ka samaynayso lacagtan kanale waxa weeye momentum ah weli meesha ku jira haddii lacagta ay soo samayso impulsive awoodle kadibna waxa weeye ay gasho correction chance ay kaga faa'iidaysan karaan sell insha allah haddii la yiraahdo haddii kalena haddii meesha la tago waxa weeye risk intriga waa kasoo qaadan karnaan insha allah waa isla fahnaa u maraynayaa kadib waxaan isla tegaynaa lacagii caadiga noo falanqaysnaa saasaan ka sugaynaa lacagta DXY iyada buygaasaan ka sugaynaa insha allah waxaan fiirin doonaa euro USD ayada maxaan ka sugaynaa euro USD fursadda aan ka sugayna insha allah waxa weeye fursadda euro USD aan ka sugayna waxa weeye daily time frame markaan fiiri sidoo kale waxay joogtaa zone adag bay joogtaa lacagtan waxay joogtaa zone adag euro USD laba possibility waa samayn kartaa labada possibility ay samayn kartaa waxa weeye in trend line-kaas 1 iyo 2 la taabtay mar kale waxa weeye la taabto oo 3 marka saddexaad la taabto kadibna waxa weeye saa loo socdo ama meesha hadda ay joogtaa maadaama ay tahay meel zone ah DXY-na ay joogto meel zone ah oo aad iyo aad u adag waxaa macquul ah in ujeeda ama filaya waa zone aad u adag bay lacagta la yiraahdo euro USD retest ku samaysa marka 4 hour-ka haddaa fiirisa xataa meeshii waa ujeedaan pattern reversal bay hadda samaynaysaa garab iyo laba madaxa u muuqda meeshuna waa meel zone ah daily time frame-ka hadda haddaa sii tagtid oo kale ama weekly time frame-ka waa arki kadhaa meesha inay tahay meel aad u adag oo zone ah oo lacagta ay retest ku samaysay marka saa inii sheegayba lacag ma jir iska daata lacagta impulsive hadday soo samaysay correction bay gashay soo daatay another correction bay gashay waxa macquula waxa weeye inay soo daato ayna u badan tahay insha allah targetkuna waxa weeye mar walba lama soo dhamaystirin areada targetku halkaasuu noqonaya insha allah daily time frame-ka marka structure-kiina waa ku dabaqinayo suuqu mar walba impulsive correction impulsive uu sameynayaa meesha hadda la joogana waxa weeye
waa zone aad u adag zonkana waxa weeye qaab reversal pattern ah meesha ka muuqda haddii 1 hour oo kale aad sii fiiriso sidoo kale xataa waa sii arki kartaa patternka reversalka haddii waxa weeye aad risk entry-ga aad qaadanayn waxaa sugi kartaa in inta laga soo jebinayo waxa weeye necklineka patternka necklinkiisa inta laga soo jebinayo si macquula caadiya loo soo jebinayo kadibna waxa weeye waxaa ka qaadan kartaa retestigaas ka qaadan kartaa mar haddii saa loo soo jebiyo lagu sameeyo retest lagu sameeyo waa chance kale waa ka qaadan kartaa haddii kalena risk entry ayay haddaba joogtaa risk entry waxa weeye waa laga faa'iideysan karaa marka lacagta insha Allah waxaan ka sugaynaa fursado noocaas ka sugaynaa haddii Allah yiraahdo waxaan fiirin karaa waxaan ku xijinayaa insha Allah lacagta la yiraahdo euro AUD lacagaha eurada ayaga laftooda waa inii sheegay chance qurux badan bay leeyihiin lacagta euro AUD ayada maxaan ka sugaynaa waxaan tegayaa 4 hour time frame waa inii sheegay asbuuc dhawatay in euro AUD halka ay chance buy ka leedahay balse intaanan eurada u gudbin insha Allah waxaan dhamaystirayaa lacagaha la halmaala ama la socda DXY waxaa la socda GBP USD ayada lafteeda waxaan ka sugaynaa chance-kaas aan ka sugaynaa GBP USD waxaan ka sugaynaa in patternka maadaama GBP aan ka sugaynay waxa weeye in wax yar buy ay aado intana waxa weeye buy ay aado asbuuci dhawto qofkii xasuusta meeshaas waa inay sheegay in laga soo faa'iideysan karo oo ay lacagta ka soo dhacayso insha Allah sell aragtay waxay soo dhacday wax ku dhow 170 marka lacagta hadda waxay ku jirtaa GBP USD waxay ku jirtaa channel bay ku jirtaa channelka waxa weeye mar baa la taabtay markii labaad baa la taabtay channelka markii labaad markii la taabtay maxaa lagu yimid qaab correction lagu yimid taabashada labaad markii la taabtay waa la soo dhacay waxa la soo clear gareeyay waxa weeye zone marka zonki in mar labaad retest lagu sameeyo oo qaab correction lagu tago kadibna waxa weeye taabashada saddexaad soo sameeyo oo ilaa halka la soo dhameystiro waa si u badan tahay lacagta GBP lacagta GBP waxa ku jira chance qurux badan oo sell insha Allah waxaan filayaa inaad ka faa'iidi doontaan 1 hour kala tan fiirino oo jeedaan zone aad u adag weeye zone aad u adag in zonka waxa weeye marka lagu laabanayo insha Allah maadaama impulse waxaanu yahay correction kala soo dhameystirayo kadibna waxa weeye soo dhacaya muuqato marka hadda waxaan ku xijinayaa lacagaha eurooyinka aan ku xijinayaa insha Allah eurooyinka ayaga maxaa ka macquul eurooyinka waxa ka macquul ah daily time frame tagaya lacagtan waa euro AUD lacagta eurada maxaan ayada ka sugaynay lacagta eurada waxaan ka sugaynay fursad waxa weeye buy fursadda buy-ga marka waa imsa u dhimo wax yar ba in la soo laabto soo dhameystiro intaas kadibna la soo laabto euro AUD na waxa weeye waa la mid chance lamida waxaan ka sugaynaa insha Allah haddii Allah yiraahdo waxaan dhawaan tirtirayaa insha Allah asbuuci dhawaato ka faa'iideysan waa in la wadaagay si fiican baa uga faa'iideysan oo hadda si fiican in kugu sii bayaaniyo asbuuci dhawaato waxaan ka faa'iideysan waxaan yiri meeshaas testiga waa ka faa'iideysan ka dhawaan ka faa'iideysanay haddana markii aan natiijadii asbuucan soo bandhigaynay waxaan sheegay in halkaana waxa weeye haddii test lagu sameeyo chance labaad ka faa'iideysan kadib chance koowaad waxaan ka faa'iideysanay 200 oo bib chance labaadna waxa weeye waxaan ka faa'iideysanay 120 bib marka mar walba waxa weeye suuqa inaad akhrisid oo waxa weeye aad si fiican u fahamsan tahay waa waxyaalaha loo baahan yahay lacagta mar walba aad analysis gareynayso suuqa weekly time frame ka soo birow weekly time frame waxaa fiirisaa lacagtan jihada ay aadi karto lacagtan waa ujeedaan in weekly time frame ka ay soo sameysay garab iyo laba madax ay soo sameysay waxaan sugaynaa lacagtan ilaa meelahaas oo kale in ay gaadho lacagta la yiraahdo euro AUD ilaa meelahaas oo kale ay tagto maadaama ay tahay zone aad u adag oo lacagtu ay samaystay marka waxaan fiirinaynaa daily time frame ka maxay sameynaysaa lacagta daily time frame ka waxay sameynaysaa pattern baa ujeedaa inuu jabay oo lagu sameeyey waxa kan yiraahdo breakout patternka waxa weeye waa symmetric sida hore aan u sheegnay waxa weeye waa labada dhab uu aadi karaa suuq haddii hoos loo jabiyo hoos baa uga faa'iideysan kartaa haddii kor loo jabiyana kor baa uga faa'iideysan kartaa patternkaasna qofkii aan aqoon mar walba oo patternadu ay jabaan cabirkiisa la qaataa kadib suuqu markuu jabiyo cabir la eg buu sii socdaa ilaa intaasoo kale waxa weeye in suuqu uu sii socdo ay u badan tahay oo zonka waxa weeye la dhamaystiraya insha Allah kadib 4 hour kan fiirinaynaa 4 hour ka pattern-kii waxa weeye zonkii ma la jabiyo pattern-kii waa la jabiyo waa ujeednaa zonkiina waxa weeye waa la jabiyey oo si qurux badan baa waxa weeye zonkii loo jabiyey testina waa lagu sameeyey bayna waa laga aaday 4 hour ka marka maxaa muuqda
4 hour waxa muuqda in waxa weeye patternkan si qurux badan uu ula dhamaystirnay zoonkan waxa weeye iska dhalid soo qaado waxa weeye lowga iyo highga soo qaado waxa muuqata weli in zoonkan waxa weeye demandiga suuq waxa weeye uu si fiican uga dhaqaaqin mar labaadna waxa weeye u baahan tahay in lagu soo laabto meeshaan in mar labaad lagu soo laabto suuq waxa weeye uu dhamaystirto double bottomka uu ku yimaado meeshaas double bottomka markuu ku yimaado kadib correction meesha qaab correction lagu yimaado in waxa weeye chanceskaas fursad buy ah oo qurux badan uga faa'iidaystay insha Allah marka janiska waxa weeye ilaashada haddii la yiraahdo baatanku suuq iskama boodo ilaa uu baatanka dhamaystirto waa ujeedaan halkaa 2 taabasho oo kale xogaa oo kala dheer buu samaystay laakiin 2 taabasho oo hoosna waa inuu sameeyaa suuq waxa weeye bay ku aad marka lacagta waxaan filayaa in isha ku hayn doontaan insha Allah haddii la yiraahdo waxaan ku xijinayaa lacagta la yiraahdo Eurocard ayada lafteeda waxa ku jira fursad qurux badan oo ku jira Eurocard fursadan ka sugayna waxa weeye waa fursad buy ah fursadda buygaas ee ugu timid lacagtaas fursadda buyga waxa ku timid haddaan wada dhaliido weekly time frame ka anta mar walba low higher time frame ka soo bilow waxa muuqata in laga celiyay meel zone ah oo adag zonkii aadka marka laga celiyay daily time frame ka tag daily time frame kaaga markaad tagtid waxa ujeedaa suuqii in meeshii uu ka sameeyay reversal uu ka sameeyay 4 hour uu sii gudub 4 hour maxaa kaaga muuqda 4 hour waxa iga muuqda suuqu trailing waa jibiyay trailing down ka ahaa suuqu wuu jibiyay hadda waxa weeye wuxuu bilaabanayaa uptrend buu bilowday marka zonka waa muhiim zonka mar walba in test lagu sameeyo zonka mar walba in lagu sameeyo test waa muhiim lacagtan Eurocard fursad buy ah ayaa ku jira masha Allah fursad qurux badan waxa weeye buy ah baa ka muuqata lacagtan waxaan filayaa in aad ka wada faa'iido doontaan insha Allah tii zonkan waxa weeye la yimaado kulay zone ilaa halka waa geysan karnaa zonka laakiin waxaan si leeyahay ilaa meelahan maadaama trailinka maadaama imbalance awood uu yahay in meelahan xoogaa half la soo dhamaystiro ka 1 hour kale hadaa fiirisid waxaa muuqata in suuqu sameynayo meeshaan zoonkana u muuqdo inuu mar labaad zoonka yarkaa tegayo maadaama zoon uu soo jibiyay ay ahayd inuu xoogaa soo kadib test ku sameynayo soo dhacayo waxa weeye meeshaan uu imaanayo marka waxa weeye baatanka inuu meeshaan ku imaanayo ayaa muuqata haddii meesha laftigeeda meel uu ka sameyn karo waxa weeye reversal maadaama zoon laftigeedu ay tahay saabay waa lagu aadi karaa marka 4 hour kale haddaan ku laabano zonka waa noo saxayaa mar walba zonka waa noo saxan yahay marka insha Allah waxa weeye lacagtan ilaashada haddii la yiraahdo lacagta waa fursad waxa ku jira buy ah ku jira haddii wax yar madaxa saa loola baxo kadib halkan baa laga soo dhamaystirayaa trailinka yarka uu abuurtay 15 minutes oo kale soo dhamaystiraya kadibna lacagta waxa weeye fursad buy ah ku jira insha Allah fursadaasna waxa weeye la moogaan fursad qurux badan baa ku jira Euro JBP ayada laftigeeda fursad fiican oo waxa weeye buy ah ku jira Euro AUD waxay jabisay daily time frame ka tan oo kale waxay jabisay 1 iyo 2 bay hoos ku bay samaysay 1 iyo 2 iyo 3 waa la jabiyay zonkina waa la jabiyay marka testigaas 4 hour ka daan tagno testigaas in aan helno kadibna waxa weeye 90% ka la soo dhamaystiro ayaan ka sugaynaa marka already laba taabasho oo kale hadda suuqu taabashadii labaad ayuu joogaa marka in halkaana 2 taabasho ka soo sameeyay maadaama kor 2 taabasho ka soo sameeyay waa sidii loo baahan yahay sidoo kalena zonkan waxa weeye waa demand zone mar suuqa uu abuurtay xawaare uu kaga dhaqaaqay waana soo laabta mar kale xawaarihii mid lamid ah mid ka daran ka dhaqaaqaya marka insha Allah waxa weeye lacagtan ilaashada fursad qurux badan baa ku jira haddii halkaa lagu sameeyo test waxa weeye ka faa'iideysan karaan insha Allah lacagaha eurada dhan waxa weeye fursad buy ah ku jira laakiin JPY laftigooda fursad qurux badan oo lacagaha JPY da fursad sell ah ku jira ayaga laftigooda marka tan waa la mid Euro NZD daily time frame ka daan tagno ujeedaan ayada lafteeda halka waxay jabisay descending bay jabisay testiga way dhamaystirtay buy bay aaday anada waxay samaystay halkan
anada halkan waxay ka samaystay zone bay ka samaystay zonekii waxa weeye waa ujeedaan demand zone bay samaystay imbalance awoodla looga dhaqaaqay hadda suuqu wuxuu ku jiraa laba taabasho oo kore soo samaystay laba taabasho oo hoose waa inuu samaystaa halkan taabasho labaad waa inuu kusoo laabto mar labaad insha allah wax duwaalkaa yimaado fursad qurux badan oo waxa weeye buy ah ka faa'iidaysan kara insha allah lacagaha yuurada dhan waxa weeye fursadaasi leeyihiin waxaan tegayaa lacagaha JB-yada lacagaha JBP-yada GBP card oo ujeedaan isbuuc hore aan la wadaagay fursad seelan tahay halkaasaan kala wadaagay qofkii sii hayay 60 TP weyn ugu dhacday annaga kadibna waxa weeye TP2 brigham bay nooga soo dhintaan gaari marka laakiin way sii daacad qofkii waxa weeye sii hayay TP-gii waa loogu dhacay 100 kii kale waxa weeye TP-giisa meelaha dhigteena almost 200 iyo ka badan buu ka qabtay marka insha allah waxa weeye lacagtan fursad hadda qurux badan hadda oo kale igama muuqato ogaa meesha hadda ay joogto waa zone adag waxaa macquula in mar labaad la celiyo oo halkaa lagu celiyo zonka lagu celiyo kadibna waxa weeye ay soo daato ogaa waxaa muddaa ranjin lacagtan inay gashay marka iyada haddii aan fiirino waxa weeye qaabkeeda haddaan fiirino zoomkiina waa ujeedaan zoomkiina waxa weeye waa laga soo laabtay marka waxaan is leeyahay 1 hour oo kale 4 hour oo kale haddaan tagno meelahaana lagu laabanayaa saa ujeedaanba suuqii wuu kasoo dhaca meeshii lacagtan runtii jaanis qurux badan baa ku jira waa arki doontaa si fiicanaa loo ilaashaday baatankii way jebisay baatan bay meesha ku timid baatankii waa ujeedaan way jebisay baatankii mar hadduu jabay badanaa waxa weye cabirkiisa unbaa la dhaqaaqa baatankaa cabiranaysaa lacagtan mar walba waxaa ogaanaysaa in seer u dhiman yahay ogaanaysaa lacagtan weli waxaa kusii jira bibis badan baa kusii jira marka waxa weeye areadan runtii waa area ay macquul tahay in lagu laabto oo mar labaad lagu laabto waa area macquul ay tahay halkan waxa weeye haddii lagu laabto qaab corruption loogu laabto insha allah ka faa'iidayso chance kale oo pixel ah imbalsiga hore mid lamida inuu waxa weeye meesha ka dhaco bay u badan tahay insha allah marka chance-ka isha ku hay GBP USD ayada laftigeeda saa inii sheegay waxa weeye waa chance-kaas GBP AUD laftigeeda asbuuca hore waxa weeye baan halkaas aan kaga diray waxa inii sheegay falanqaynta waa soo daawan karnaa waxa inii sheegay waxa weeye haddii meesha retest lagu sameeyo inaan kasoo qaadato iyada laftigeedu waxay noo dhaqaaqday 225 bip noo dhaqaaqday asbuucii kasii horeeyeyna waxa inii sheegay in waxa weeye 1 iyo 2 iyo 3 ga la tegi doono iyadoo halkaa maraysa iyadoo meelahan maraysa inii sheegay in 1 iyo 2 iyo 3 ga loo socdo halkaa qofkii risk intriga ka soo qaatay maasha allah faa'iido fiican buu ka qabtay ilaa 320 bip buu ka qabtay wax dhan marka hadda chance-ka labaad oo kusii jira waa maxay lacagta la yiraahdo GBP AUD chance-ka labaad oo kusii jira waxa weeye haddii aan isla fiirino fursad labaad baa kusii jira daily time frame baan tegayaa daily time frame-ka meesha zonka mar walba zonka la jabiyey ee lagu soo laaban doono waa inuu waxa weeye ku cabiraya waa inuu cabir kuu saarayaa zonka lagu soo laaban doono marka 1 iyo 2 iyo 3 ga waa la sameeyey 1 iyo 2 baa laga sameeyey 4 hour ka tag 4 hour ka ujeedaan almost zonkii waa laga soo laabtay zonka haddii laga soo laabtay 1 hour ka aan fiirin ayada chance qurux badan ku jira meesha yes hadda waxaa moodaa lacagta inay sameynayso flag inay hadda abuuranayso meesha ka abuuranayso flag noocaan oo kale inay abuuranayso marka haddii halkaa la tago haddii meesha la tago haddii halkaas lagu tago way chance-ka waa kasoo faa'iidaysan karnaa insha allah marka waxaa moodaa in halkan bay laga aadayo halkaa mar labaad lagu noqonayo zonka in wax yar madaxa lagala baxo kadibna halkaas fursad qurux badan oo seela lagaa siiyo haddii aad tagtid oo kale 4 hour isla almost zonkii bay noqonaysaa wax badan xataa lagama dhexbaxayo zonka waa isla zonkii caadiga ahaa waa 4 hour zonkii bay noqonaysaa marka
meeshaas areada in mar labaad lagu laabto halkaa lagu laabto waxa weeye chance sell aa ka heshay insha allah GBP CHF ayada usbuuci dhow toban dhaaftay lacagta aragtay waan ka sugaynay laakiin nama siin waan ka sugaynay laakiin nama aysan siin hadda waxaa muuqata in zoonkan waxa weeye lagu sameynayo test lagu sameynayo mar labaad dibna halka ayada laftigeeda waa kasoo faa'iidaysan kartaa insha allah zoonka waa lagu laabanaya se u badan tahay GBP NCD ayada waa kasoo faa'iidaysan usbuuci dhow toban qiimaha waxaana dhan waan falanqeeyay waa soo daawan kartaa mid ana falanqeyn ma laha waa soo daawan kartaa waxaana dhan ayada waxaan ku falanqeynay waa inii sheegay zoonka in test lagu sameeyay zoonka xitaa waa soo wareeyay tartiib u soo wareeyay deeba ayada ka faa'iidnay ayada waxaan ka faa'iidnay waxa weeye 219 marka hadda waxaa muuqata mar labaad in waxa weeye lagu laaban doono waxa weeye zoonkan in zoonkii maadaama zoonkii la soo jebiyey in lagu laaban doono insha allah lacagtan runtii laga hadlo lacagtan aad u qurux badan qof walba u ilaasho waxaa macquul hadda ay u badan tahay in zoonka waxa weeye qaab correction loogu laabto haddii meesha zoonka lagu laabto waa kasoo faa'iidaysan kartaa insha allah marka mar walba lacagahaas waxa weeye hala ilaashado isbuuci dhowata halkaasaan kasoo dirnay waxaa inii sheegay in baatankan wuxuu ahaa complex head and shoulderka waxa weeye qaar waxaa jira complex isku qasan ama fahmin marka neckline-ka waa lagu laabtay kadibna waxa weeye si qurux badan baa loo soo daatay marka mar walba waxa weeye waxaa loo baahan yahay inaad garanaysid waxa weeye meesha laga laaban doono lacagaha JPY-da runtii lacaga aad u qurux badan ah ayaan laftooda in la wadaagaya aan kusoo gabagabeynayaa lacagaha JPY-da fursadda aan ka sugayna waa maxay AUD JPY waan ku hormarayaa AUD JPY waxay sameynaysaa fursad qurux badan laakiin waa fursad waxa weeye xogaa AUD JPY waa iska risk ayada maadaama ay ilaa halka inay soo jebiso ilaa inay zoonkan intay jebiso test ku samaysan maahan lacagta lagama qaadan karo waa inay kor inay kugu aadaa macquul laakiin lacagaha card JPY ayaa waxay joogtaa meel zone u dhow insha allah zoonka haddii la tago card JPY fursadda waxa weeye wax yar baa zoonkii uga dhiman 4 hourka haddii zoonka la tago card JPY waa fursad aan kasoo faa'iidaysan karin maxaa yeelay wax ku celinaya ma laha almost lacagtu waxay jebisay trendline down trend ay jebisay mar haddii trendline down trend ay jebisay fast impulse dhacay fast flag mar haddii aragtid waa inii sheegaa isbuuci dhowataan filaya haddii aragtid waxa weeye impulsive awood leh oo correction uusan ku jirin impulsive awood leh waxaa sugtaa deep correction inaad sugtid ama deep correction dheer oo ku aad u laabtay inaad sugtid marka correctionkaas aad buu dheeraanaya ilaa meelahaas uu gaaraya insha allah waxa weeye kasoo faa'iidaysan kartaa Euro JPY haddaan fiirino ayada Euro JPY ayada waxa weeye double top meesha waxa weeye waa meel double top ah meeshii double top waxa lagu yimid qaab magaranaysaa qaab waxa lagu yimid qaab qurux badan oo 1 iyo 2 iyo 3 ah suuqu muxuu samaystay 1 iyo 2 samaystay 1 iyo 2 markuu samaystay hadda qaabkii meesha waa loo wadaa suuq meeshii ayaa loo wadaa marka double topkaas in suuqa kasoo sameeyo reversal ayuu badantaa insha allah maadaama suuqa already momentumkii uu lumiyey oo meesha waxa weeye laftigeeda ugu soo socdo qaab 1 iyo 2 iyo 3 ah in meesha mar kale la yimaado ama waxa weeye wax yar halka aad bay u dheeraanaysaa 3gaas runtii aad bay u dheeraanaysaa waxaan leeyahay 3ga inaan la gaarin meesha waxa weeye suuqa kasoo sameeyo rejection kadibna waxa weeye soo dhacay haddii balse la gaaro oo meesha la jebiyo waxaa sugtaa waxa weeye meesha la tago kadibna waxa weeye chance baa soo qaadan kartaa marka lacagta isha ku hay haddii meesha waxa weeye ka heshid reversal ka heshid meesha hadda reversal ka heshid waxa weeye chance ka wax kasoo faa'iidaysan kartaa marka sidee uga faa'iidaysan kartaa waxa weeye meesha maadaama ay tahay riski ay tahay oo kale waxa uga faa'iidaysan kartaa hal mid uga faa'iidaysan kartaa inaad trailing-kaaga saaratid sugtid waxa weeye trailing-kii suuqa inuu soo sameeyo reversal ama uu soo dhaco suuqu markuu halkaa tago oo meesha uu tago wuxuu bilaabaya inuu soo dhaco markuu trailing-ka markuu kusoo jebiyo trailing-ka waxa weeye uu zoonkan oo kale uu kugu sameeyo test baa kasoo qaadanaysaa si dhibi maysid si qurux badan baa uga soo qaadanaysaa haddii kalena waxa weeye riski intrigaaga waa iska qaadan kartaa adeeg kugu xiran tahay qaabka u trade garaysid NZD JPY ayada waxaa moodaa zoonkaas in lagu laabanayo in waxa weeye zoonka mar kale lagu laabanayo waxay u badan tahay 4 hourka haddaan geeyo waxay u badan tahay zoonka in la tegayo insha allah zoonka haddii la tago waxa weeye fursadda seelka
runtii waa fursad aad u qurux badan aad ka soo faa'iidaysan kartaan almost inaad imbalsigaan dhacay corruptionkan imbalsi kale in meelaha la tago kadibna lasoo dhaqay insha allah marka isha ku haya lacagahaas oo dhan CHFJPY ayada lafteedu fursad aad u qurux badan bay samaynaysaa fursadda waxa weeye waa magaranaysaa waa 1 iyo 2 waxay samaynaysaa waa lacagtan waxay probability 1 iyo 2 bay samaynaysaa plus double topkii qaab noocee loogu soo socdaa double topkii qaab waxaa loogu soo socdaa 1 iyo 2 iyo 3 ujeedaa waa 1 iyo 2 iyo 3 marka waxay u badan tahay in 3ga la waxa weeye meesha double topka la soo dhameystiro kadibna waxa weeye la soo dhaco trailinka in lagu soo jabiyo waa isugu ka dhaca haddii kalena risk 3 ka soo qaadan ka dhaca insha allah lacagta isha waxa weeye lagu hayo si qurux badan waxa weeye insha allah lagu hayo lacagaha JPY-da waa lacagaha ugu fursadda fiican insha allah usbuuca JPY ayada waxa weeye lacagtaas lacagta JPY runtii waxa structure qurux badan hadda iga muuqdaan structure qurux badan iga muuqdaan waxaan isleeyahay sida lacagaha JPY-da lacagaha waxay la qabtaa GBP-da waxaan moodaa in halkaa lagu laaban doono insha allah haddii halkaa lagu laabto corruptionkaas unbay gelaysaa kadib waa kasoo faa'iidaysan kartaa insha allah marka USDT haddii aan isla fiirino USDT fursad runtii fursaddan aad bay qurux badan tahay fursaddan isku dhaafin USDT waxay samaynaysaa 1 iyo 2 iyo 3 wax yar baa uga dhiman 1 hour-ka haddaad tagtid oo kale waa loo socdaa waa ujeedaan si qurux badan baa loogu socdaa haddii meesha la tago waxa weeye waa kasoo faa'iidaysan kartaa waa fursad aad u qurux badan US 100 baa la mid double topkaasaa loo socdaa double topka haddii la tago waa kasoo faa'iidaysan kartaa insha allah daily double top wey marka daily double topka haddii la tago dad macquul waa soo saaran kartaa waana kasoo faa'iidaysan kartaa targetkaagusi ha noqdo ilaa halkaas kulliga wuxuu samaynayaa usbuucan waxaan ka sugaynaa insha allah fursad buy baan ka sugaynaa insha allah kulli fursadda buyga aan ka sugayna waxa weeye short term yar oo sale ku jira and then long term buy marka short term ka yarka sale ka marka ka cunti kulli wuxuu samaynayaa imbalsive awood leh double bottom kaas u yimid imbalsive awood leh sameeyay kadib wuxuu abuurtay 4 hour zone marka aad buu uga dhaqaaqay inuu mar labaad ku soo laabto zone-ka laba taabasho oo kala dheerna waa soo sameeyay laba taabasho oo hoose oo siman inuu soo sameeyo bayna u baahan tahay insha allah mar walba suuqu laba taabasho oo kala dheer uu sameeyo laba taabasho hoose oo siman buu badanaa sameeyaa marka golligii haddii areadan la yimaado areada waxa weeye waa 1700 iyo 22 haddii halkaa la yimaado fursad baa qurux badan insha allah waa uga faa'iidaysan kartaa haddii la yiraahdo marka intaasaan kusoo gabagabeynayaa guys haddii la yiraahdo asxaabta channelka waxa uu u share garee asxaabtaada la wadaag casharo badan baa channelku jira soo daawo wax badan baa fahmaysaa iyo qaabka aan u trade gareyno anagoo market structure-ka hadda isticmaalayno haddana zone-keena ku darayno asxaabtaada la wadaag insha allah channelka subscribe saar haddaad subscribe saarin insha allah backtestingka iga sugeysayna waxa weeye aad baan isbuuc dhowto mashquulay scalping signalskii faraha badnaa oo previous-ka badan aan ku qaban jirnay insha allah isbuucan waa la wadaagay haddii la yiraahdo isbuuc dhowta laga raali ahdo waa mashquulay isbuucan laakiin waxa weeye signals badan baan soo gudbinaya insha allah sidoo kale backtesting insha allah backtesting istiraatiijiyadii waxa weeye aan soo dhigay backtestingkoodii insha allah waxa weeye qayb kamid ah waan soo gelin doonaa haddii la yiraahdo channelka waxa weeye mar walba ku taxnaw asxaabtaadana la wadaag assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu